بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمت هذا لبضة بشا جون سنتك لبكن لباتنية لح أو كوبهن لحية تبانك بشا ذو الحجة سنتك كن أفر بغلا فرتنية تضبا تاريخ ذا هجرية ده كسو دوادا مركله هي برامجكي ونشادا وراركا قضبدا ساعك برامجك أن إذن كوهينو وحا كمدا وروشكا أو مid كمدا دقيمه وعسلا ساكي لبياكسدي magaalada Kiev ee caasimada Ukraine waxaa la soo warinayaa dhimasho dhaawac waad waalan tahay aniga la'aantay xabsi ayaad ku jiri lahayd qof kastana wuu ku neceb yahay hadaladani waxay qayb ka ahaayeen wadahadal kulul oo telefonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu waxaan idin haynaa faahfaahinta doodda labada nin dhex martay iyo canaanta loo jeediyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil dagaaladii u dhaxeeyay xoogaga Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil oo halkoodii ka sii socda inkastoo Trump uu ku dhawaaqay xabad joojin militariga Israa'iil oo qirtay qasaare dhimasho dhaawac isugu jira oo ciidankooda ka soo gaaray dagaaladaasi waxaa ka mid ah sarkaal darajadiisu ay tahay kabtan oo lagu dilay dagaalada taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil imikana ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ugu culus ayaa ugu baaqay Netanyahu inuu iscasilo isagoo u jeediyey eedeymo culus oo la xiriira dagaalka Xisbullah ay kula jiraan dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idinku si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku hormaraynaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyadoo dagaalada lagu soo waramayo in ay ka socdaan furimaha hore ee dagaalka ayaa docda kale waxaa labada dhinac isweydaarsanayaan duqeymo ballaaran ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro ciidamada Ruushku ay ku qaadeen caasimada Ukraine ee Kiev iyo magaalooyin kale sida maanta ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine mas'uuliyiinta magaalada Kiev ee caasimada ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah laga maqlay magaalada iyadoo nidaamyada difaac cirkuna ay la tacaaleen gantaallo iyo weliba diyaaradaha droneska duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa shacabka ugu baaqay inay ku sugnaadaan goobaha gabaadka looga galo gantaalada isagoo xusay in weeraradu ay sababeen dhaawacyo dab kacay korontada oo go'day xaafado kala duwan iyo sidoo kale qasaare kale gobolka Dnipropetrovsk weerar Ruushka uu ka geystay ayaa dilay dad rayid ah halka tiro kale ay ku dhaawacmeen magaalada Kharkiv ayaa sidoo kale la kulantay duqeymo dhaawacay dhowr qof isla markaasna waxay la u geystay dhismayaal la degan yahay magaalooyin kale oo ay ku jirto Kherson iyo deegaano kale oo koonfurta iyo bariga dalka Ukraine ayaa laga soo sheegayaa dhaawacyo iyo burbur baahsan oo ay sababeen duqeymaha Ruushka uu geystay dhinaca kale maamulka Ruushka ee gobolka Kursk ayaa sheegay in qof rayid ah lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaarad drone ah oo Ukraine ay fulisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku hanjabay in jawaab aan laga maarmi karin laga bixin doono weerar lagu qaaday magaalada Istropolsk ee gobolka Luhansk iyo magaalada Donetsk oo ay Ruushku maamulaan Putin wuxuu ku eedeeyay Ukraine inay beegsatay goobo ay ku sugnaayeen caruur iyo dad rayid ah xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine ayaa sii kordhaysa iyadoo weerarada diyaaradaha aan duuriyaha lahayn labada dhinac isweydaarsanayeen sare u kaceen bilihii la soo dhaafay dadaalada dhanka diblomaasiyadda ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka ayaa guuleysan iyadoo qasaaraha bini'aadamnimadana uu sii kordhayo saacadda ka dambaysa وهجاد
wixii waraha ee arrimahaasi ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaanu idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo bal markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda iiraan iyo maraykanka madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa mar kale wuxuu ka hadlay xaaladaha ugu dambeeya wada xaajoodadii u dhaxeeyay Washington iyo Tehran Trump ayaa waxa uu sheegay in heshiis horodhac oo u dhaxeeya maraykanka iyo iiraan la gaari karo toddobaadka soo socda kaas oo la xiriira sii wadida xabad joojinta iyo dib u furista marina biyoodka muhiimka ah ee Hormuz madaxweynaha maraykanka oo la hadlayay telefishinka ABC ee maraykanka laga leeyahay ayaa sheegay in wadahadalladu weli ay socdaan balse heshiiska kama dambaysta aan weli la saxiixin arrintaasi uu ku daray in heshiis nabadeed oo lala gaaro Iiraan uu ka qiimo badan yahay guul military isagoo xusay in labada dhinac ay ku jiraan wada xaajoodi adag balse horumar kooban sameeyay hadalkan ayaa yimid iyadoo warbaahinta Iiraan ay horay u sheegtay in wadahadalladii la hakiyay kadib weerarada Israa'iil ay ka fulisay Lubnaan si kastaba ha ahaatee Trump ayaa sheegay in wadahadalladu ay ku socdaan xawaare sare waa si hadalka uu dhigay wasaaradda amuraha dibadda ee Iiraan ayaa digni ku bixisay jebinta xabad joojinta iyadoo sheegtay in xadgudub kasta oo ka dhaca hal jiho uu saameyn ku yeelan doono dhammaan jihooyinka kale war kale oo arrimahan la xiriira hogaamiyaha aqlabiyadda laga tirada badan yahay ee xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka ee Maraykanka Jack Schumer ayaa mar kale dhaliilay dagaalka uu madaxweyne Donald Trump kula jiro Iiraan isagoo ka digay in dib u dhigista dadaalada lagu soo afjarayo colaadan ay si toos ah u saameynayso askarta Maraykanka iyo qoysaskooda qoraal uu ku daabacay barta bulshada internetka uu ku leeyahay Schumer ayaa sheegay in Trump uusan markii hore ballan qaadin wax allaala iyo waxa ka hor imaan kara dhibaato dhacda isagoo tilmaamay inuu sheegay inuusan ku degdegayn soo afjarista dagaalka Iiraan arrintaasi oo sheegay inay tahay mid halis ah qoraalkiisa wuxuu ku yiri Trump wuxuu leeyahay kuma degdegayo in la soo afjaro dagaalka Iiraan taas u sheeg askarteena qatarta ku jirta u sheeg qoysaskooda u sheeg shacabka Maraykanka ee la daala dhacaya qiimaha shidaalka oo gaaray heerar aad u sareeya senatarka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in dimuqraadiyiintu sii wadi doonaan dadaaladooda lagu doonayo in si buuxda loo soo afjaro colaadda ma joojin doono halganka lagu soo afjarayo dagaalkan mar kaliya iyo gebi ahaanba ayuu hadalkiisa ku daray hadalka Schumer ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan doodaha dhanka siyaasadda ee ka socda Washington ee ku saabsan saameynta military dhaqaale iyo amni ee dagaalka u dhaxeeya Maraykanka iyo Iiraan oo ku yeeshay caalamka iyo guud ahaan gobolada waddanka Maraykanka waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Xisbullah iyo Israa'iil oo qiratay askar kaga geeriyootay dagaalka oo kabtan oo ku jiro waxaan kaloo idin haynaa wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu oo dood adag canaan iyo cambaarayn si xun furka la isugu tuuray intaan u gudbin wararkaas iyo warar kale aynu ku mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan talaadada toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube Facebook Twitter iyo Telegram warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag haatan waxaynu qooraansanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Xisbullah iyo Israa'iil ka dhex aloosan inkastoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegayo heshiis in la gaaray haddana arrinku sidaasi waa ku duwan yahay aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Xisbullah ka soo baxay saacadihii ugu dambeeyay ururka Xisbullah ayaa ku dhawaaqay inay gantaal ku beegsadeen 3 taangi oo ah nooca Merkava oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo ku sugnaa deegaanka Al Bulaaw ee koonfurta Lubnaan ururka reer Lubnaan
ayaa sheegay in gebi ahaanba la burburiyey taangiyadaasi weerarka ayaa dhacay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in Israa'iil iyo Xisbullah ay ogolaadeen xabad joojin dhinaca kale ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in 2 askari oo kamid ah ciidankooda la dilay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen 2 dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay koonfurta Lubnaan sida lagu sheegay bayaanada ciidanka askariga koowaad wuxuu ahaa saajin 20 jir ah halka kan labaadna uu ahaa kabtan 30 jir ah waxaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalo ka dhacay koonfurta Lubnaan ciidanka Israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska laga leeyahay waxay u sheegeen in 2 askari lagu dilay weerar Xisbullah ay ku fulisay dayuuradaha aan duuriyaha lahayn kabtanka la dilay ayaa la sheegay inuu ku dhintay howlgal ka dhacay meel u dhow qalcadda al-Shaqiif qalcaddaasi oo dusha ka eegta qaybo badan oo kamid ah koonfurta Lubnaan waxay ahayd saldhig military oo ay isticmaali jireen ciidamada Israa'iil tan iyo duulaankii Lubnaan ay ku qaadeen sanadkii 1982 ilaa iyo ka bixitaankoodii sanadkii 2000 Israa'iil ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ay ballaarinayso gacan ku haynteeda gudaha Lubnaan meelo ka baxsan webiga Litani oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira xadka Israa'iil waxaana waa berigii axadii calankeeda ka taagtay qalcaddaasi istiraatiijiga dhimashadan ugu dambeysay ee soo gaartay ciidanka Israa'iil ayaa tirada dhimashada guud waxay ka dhigaysaa 27 qof waa tan iyo markii uu dib u qarxay dagaalka u dhaxeeya Xisbullah iyo Israa'iil labadii bishii March waxaana ku jira 26 askar iyo saraakiil isugu jira iyo hal qandaraasle oo rayid ah isla wararkan afayeenka ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in la qabtay 2 gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan saaka kuna wajahnaa gobolka Jaliileyda sare ee waqooyiga Israa'iil saacado uun kadib markii Trump uu xaqiijiyey in labada dhinac ay gaareen heshiis rasaas joojina gudaha Israa'iil mucaaradka ayaa si adag u weeraraya ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kadib markii la hakiyey weerar la qorsheeyey oo lagu qaadi lahaa xaafadaha koonfureed ee Beirut codsi uga yimid Mareykanka mucaaradku waxay Netanyahu ku tilmaameen maqaar saar ama hogaamiye ku shaqeeya amarada cid kale geesta kale telefishinka Israa'iil laga leeyahay ee kanaal 12 ayaa ka soo xigtay taliyihii hore ee ciidamada Israa'iil Gadi Eisenkot oo sheegaya in Netanyahu uu danihiisa gaarka ka hormarinayo kuwa Israa'iil Eisenkot ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu waqooyiga Israa'iil iyo dadka degan u horeeyo sida hadalku u yiri danihiisa dhanka siyaasadda isagoo ku baaqay inuu xilka iska casilo isla markaasna shacabka uu u sharaxo go'aanadiisa ku aadan arrimahaasi waaye intaa marka laga gudbo warka ugu weyn wuxuu ku saabsan yahay wada hadal telefoonka ay ku yeesheen xalay Trump iyo Netanyahu wada hadalka inkastoo war rasmi ah laga soo saarin laakiin dad ku dhidhow labada nin ayaa saxaafaddu wax u dusinayaan waxyaabihii laga wada hadlay horta waxaa la yiri wada hadalkii ugu xumaa oo taariikhda dhex mara labada nin ayuu ahaa arrintan ma boorska qarisba ma hoosaasinba ma dadka ay qaldayaan mise waxba ka dhaba xaaladda marka waxa lagu sheegay inay ahayd xaalad kacsan wada hadalka markii labada nin ay yeesheen aynu eegno warbixin amuurtan la xiriira oo warbixintan ay daabacday shabakada wararka ee Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay sheegaysaa in Trump uu si kulul ula hadlay Netanyahu intii lagu jiray wada hadal telefoonka ay ku yeesheen labada nin iyadoo saraakiil Mareykan ah iyo ilo xogayaal ah ay ku tilmaameen wicitaankii ugu xumaa ee dhex mara labada nin sida lagu sheegay warbixinta Trump ayaa aad uga carooday hanjabaadda Israa'iil ee ahayd inay duqeyn doonto magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan ilo xogayaal ah ayaa sheegay in Trump uu Netanyahu ugu yeeray nin waalan isla markaasna wuxuu ku eedeeyay abaal darro isagoo tix raacaya taageeradii uu u muujiyay intii lagu jiray dacwadihii musuqmaasuqa ahaa ee lagu soo oogay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Trump ayaa sidoo kale wuxuu uga digay Netanyahu weerar lagu qaado Beirut inuu sii kordhin doono go'doominta caalamiga ah ee Israa'iil imika haysata wuxuuna ku yiri qof walba hadda uu ku neceb yahay qof walbana Israa'iil ayuu neceb yahay arrintaas darteed maxaad samaynaysaa wararku wax intaa ku darayaan in Trump uu muujiyay carab weyn xilli Iiraan ay ku hanjabaysay inay hakinayso wada hadallada ay kula jirto Washington sabab la xiriira
howlgallada Israa'iil ee Lubnaan. mid ka mid ah ilo wareedka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu Netanyahu ku yiri adigu gebi ahaanba waad waaran tahay haddii aan aniga ahaan lahayn hadda xabsi ayaad ku jiri lahayd aniga ayaa badbaadiyey qoortaada. si kastaba ha ahaatee mas-uul Maraykan ah ayaa sheegay in Trump uu aqoonsan yahay xaqa Israa'iil ay u leedahay inay iska difaacdo weerarada Xisbullah balse uu ka walaacsan yahay ballaarinta howlgallada dhanka dhulka iyo beegsiga goobaha rayidka ah oo ay ku jirto burburinta dhismayaal dhan in la dilo hogaamiyaal taas oo u arko mid khatar ku ah xasiloonida gobolka. ilo xogogaal ah ayaa waxay sheegeen in Trump sidoo kale carabka ku adkeeyey in sii socoshada siyaasadan ay dhaawici karto dadaaladiisa diblomaasiyadeed ee uu kula jiro Tehran gaar ahaan iyadoo ay jiraan hindisiyaal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalada ka socda Lubnaan. mas-uul Israa'iiliya ayaa xaqiijiyey in Tel Aviv aysan hadda qorsheynayn inay weerarto bartilmaameedyo ku yaala gudaha Beirut. dhankiisa Netanyahu ayaa bayaan goor dambe uu soo saaray wuxuu sheegay inuu Trump u sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgalladeeda haddii weerarada Xisbullah ay sii socdaan isagoo xusay in mowqifkiisa uusan ahayn mid isbedelay. haddaba arrintan ma madax boorka ceshasha mise hadalkan ayuu ku yiri Trump lama oga laakiin warka soo baxay wuxuu ahaa dadkii la joogay oo ka shaqeynaya xafiisyada oo gacan yarayaashooda ahaa inay la yaabeen wadahadalka telefoonka iyo codka sare loo qaaday iyo qaylada labadina dhex martay iyo canaanta inta badan waxay ka imaanaysa baa la yiri Trump. arrintu marka inay tahay hoosaasin iyo boor isku qaris lama oga. waynu arki doonaa wixii ku soo kordha inta ayaa ku soo gabagabaynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.